magacaydu waa Cabdullaahi Bashiir Macalin waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Zamzam kulliyadda beeraha ee sanadka afraad. Waxaan sameynaynaa cilmi baaris taasoo ciwaankeedu yahay Biological Development in Fall Hormone Maize Varieties, taasi oo ah hab nololeedka cayayaankan loo yaqaan Fall Hormone. Annagoo quudin doona cayayaankaasi 3 galley oo kala duwan, 3daas galley oo ah 2 aan ka keenay dibadda iyo mid dalka ah. Kadibna aan ogaan doono saameynta uu ku leeyahay galleydaasi mid aad ku quuto kadibna mid uu markuu cuno production aad u bato. Fall Hormone wuxuu nooga imaaday qaaradda America. Afrika wuxuu soo gaaray 2016 halka Soomaaliya uu yimid dabayaaqadii 2017. Fall Hormone sidiisa wuxuu ka bilowdaa adulti taasi oo dhigi doonta ukumaha maxaa lahayd stemka geedka ama jirida geedka iyo sidoo kale qaybaha hoose ee caleenta. Markaa kadib waxaa dhacda in ukuntii meeshaas ay dilaacdo. Inta badan adultiga ama maxaa lahaay sheegay nooca loo yaqaan female-ka waxay dhigtaa ukumo isku xiran oo loo yaqaan masses oo gaaraya halkii mar 100 ilaa 200. Marka waxay sameynaysaa waxay dhigaysaa ukunta halka hoose ee geedka. Fall Hormone sida ognahay adduunyada dhibaato badan ay ku hayeen. Waa cayayaanka labaad ee ugu dhibaato badan oo dhibaato u geysta dalagyada qaas ahaan galleyda. Markii waxaa ka horeeyo anyaxa asiga wuxuu ku jiraa kaalinta labaad xagga burburinta dalagga qaas ahaan galleyda. Sidaas darteed jaamacadda Zamzam waxay go'aansatay in ay cilmi baaris ku sameyso dhibaatada uu ku hayo beeraleyda Soomaaliyeed si loogu hortago loona soo saaro ka hortag iyo daaweyn isku jirto. Nolosha Fall Hormone waxay qaadataa isteejyada kala duwan oo marayo bil ay qaadataa ama 30 bari. Marka ugu horeysa wuxuu maraa wax loo yaqaan instaris oo ka kooban ilaa 6 xabo. Instariskaas waxa ugu daran markaas uu quudashada sameeyo ama maxaa lahayd sheeg dalagyada uu burburiyo waa markuu marayo instarka afraad ilaa iyo instarka 6aad. taasi uu maxaa lahayd u yahay maxaa lahayd waqtiga ugu dhibaatada badan ee beerta uu dhibaato aad u weyn geysto. Inta wixii ka dambeeyay wuxuu isku bedelaa wax loo yaqaan pupa oo dormant uu yahay oo dhulka uu ku nagaanayo. Marka muddo ayuu dormant ahaadaa gaarayso 2 usbuuc meelaha. Inta kadib wuxuu noqdaa haddana maxaa lahayd sheeg adultigii asoo isla sexualsigii ama maxaa lahayd meerta nololeedkii ku soo celinayo oo isla sidii oo kale haddana maxaa lahayd adulti noqonayo. Baaritaanka hadda 2 dhinac ayuu ku socdaa. Mid waxa waay fieldiga ayaa lagu baarayaa, mid kalena waxa waay labka. Sida ognahay asiga 4 marxalad ama 4 stage oo maraa. Kuwa egg ukunta ka bacdi larvaha ku xigo ka bacdi pupa ku xigo ka bacdi waxa ku xiga adultiga. 4taas cycle-kaas kan ugu daran oo wax dhibaateeyo maxaa la jira dalagyada dhibaateeyo waxa waay larvaha stage-ka larvaha markuu joogo. Marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay idmo markay dhamaato semesterka markuu dhamaado inaan beeraleyda Soomaaliyeed aan soo bandhigno yacni shaqada aan ka qabanay tan labka iyo tan fieldigaba aan soo saarno qaabka ugu fiican oo loo kontrolo. Xasharadan waxyaalaha la yaab kale ama aadka maxaa lahayd sheegayto mucjisada ilaa waxa kamid ah in ay sunta la qabsato oo maxaa lahayd haddii aanan waqti hore la buufin beertii ay sunti la qabsanayso aysan waxba ka tareenin. Sidoo kale waxay awoodaa in maxaa lahayd ay samayso migration ay samayso ama ay safarto intaasoo kilomitir 100 kilomitir. Badanaana wuxuu active yahay habeenkii uu active yahay oo adultiga qaybta nooca female-ka habeenkii uu inta badan maxaa lahayd uu guureeyaa oo socdaa. Marka 100 kilomitir ay jaraysaa suntii way u adkaysanaysaa maxaa lahayd ukumo badanna way dhigaysaa oo si dhaqso ay ku faafaysaa. Marka dhibaato aad u balaaran bay gaarsiin kartaa dalagga maxaa lahayd sheegay kala duwan ee la beerto. Waxyaalaha kale oo adana maxaa lahayd sheegay iyada unique ku tahay ama gaarka u leedahay waxa kamid ah inaan crop rotation aan laga hortagi karin. Maxaa yeelay يعني waxay quudanaysaa 80 dalag ilaa iyo in ka badan ay quudanaysaa. Marka way adkaanaysaa xitaa in crop rotation ama waxyaalahaas oo kale lagu manage gareeyo oo ilaa haddii dalagii istiraahadid kan ka bedel ku kale ku bedel hadaa istiraahadid xilli maxaa lahayd xilligan wax abuuraysid yani isla kii kale haddana way quudanaysaa. Marka xashada aad u dhibaato badan waxyaabaha lagu garan karo marka in beertaada Fall Hormone ku jira waxa weeye waxa arkaysaa caleentii whole yani maxaa lahayd whole leafiskii oo maxaa lahayd cunan ba arkaysaa oo markay waliba galeed markay aad ku yar tahay markaasi waa
early stage buu joogayo xaalad hore waaye mar dambe uu xaalad halis ah oo yani aad u dhibaato u gaaro caleentii oo dhan baa la cunaa waxaa lagu arkaa wax loo yaqaano fras loo yaqaano oo powder ah oo yani grey cadaan ah marka waxyaalaha lagu gartay ka mid tahay marka fall armwormka yani waxaa jirto intaas oo maxaa lahayd ii sheegayto species oo isku nooc yihiin aad isku egyihiin sida African armyworm nooca loo yaqaano asaga waxa lagu gartaa wuxuu leeyahay madaxa wuxuu ku leeyahay inverted y shape calaamada oo yani y kor maxaa lahayd ii sheegayto oo maxaa lahayd u qaliban ayuu leeyahay iyo sidoo kale afar spots wuxuu ku leeyahay dhanka dambe madaxiisana yani gees ahaan wax inuu leeyahay waa u malaysaa maadaama ay adduunka marka loo fiiriyo ay kala duwan tahay hadba environmentiga ay joogto marka ka Soomaali ahaan ama deegaankeena hadba marka waxaan rabnaa inaan ogaano sidee ugu tarmayso maxaa lahaay ii sheegay waqtiga loo manage gareyn karo marka hadii la ogaado maxaa lahaay life cycle-kiisa waxa fudaanaysa in la ogaado waqtiga maxaa lahaay la manage gareyn karo in la ogaado iyo sidoo kale maxaa lahaay production-ka uu sameynayo fall armworm-ka female-ka adult female-ka production-ka uu sameynayo waxyaalahaas way waxaan rabno inaan ogaano taasi hodhow beerleydii u fududeynayso inay gartaan fall armworm-kii muxuu kaga duwan yahay maxaa lahaay armworm-iska kale ee jira waqtigee la control karaa waxyaalahaas oo dhan bay u fududeynaysaa hadafka cilmi baarista aan ka leenahayna waa intaas waxaan rabaa in aan bogaadin u sameeyo ardaydii isku taxallujisay oo ka shaqeynaysay muddo badan programka hadda aan ka hadlay oo ah fall armworm-ka runtii shaqo aad iyo aad u wanaagsan ayay qabteen waxaan rajaynaynaa markay soo bandhigaan natiijada inay noqon doonto mid oo wax ku ool ah oo beeraleyda Soomaaliyeed wax u tarto waddankan wax u tarto iyagana ay magac u noqoto insha Allah